madashan oo ahayd madal kulmisay ganacsatada Soomaaliyeed isla markaana ay ku soo bandhigayeen agabyada iyo adeegyada kala duwan ee ay bixiyaan ayaa loogu magac daray bandhiga ganacsatada Soomaaliyeed. qaar ka mid ah ganacsatadii ka soo qayb gashay iyo dhalinyaradii hal abuurka ganacsi halkan ku soo bandhigay ayaan dareenkooda la wadaagnay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ani waxaan gudoomiye u ahaa kambaniga shirkadda ganacsiga miraha beeraha muxuu ahayd wax soo saarka dalagga beeraha. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno bandhiga horena waa ka soo qayb galno, laakiin kan wuxuu dheer yahay ganacsiga Soomaaliyeed oo kumbuda iskugu imaadeen ajaanib shaqo kuma laha. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maadsanta. bismillaahi raxmaani raxiim. sida arkaysiin waa kambaniga Some Fresh Fruit and Vegetable, kambanigaas oo soo saaro ama dayactiro mooska jaalaha khudaarta noocyadiisa kala duwan. kambanigan waqtiga la aasaasay haddaan idin sheego waxaa la aasaasay 2013 waxaa aasaastay maamo Xirsiyo. maamadaas oo ah ganacsato Soomaali sidoo kale ah qof hal abuur ah. sida arkaysid mooska waa moos jaalo, waa moos la dayactiray, waa moos la nadiifiyey, waa moos waqti la geliyey, juhdi la geliyey, cilmi la geliyey. sidoo kale waa moos yani waqti badan qaatay in uu noqdo mid macaan oo maasha Allah ah. sidoo kale arkaysiin khudaartan waa khudaartii iidan oo dalka ka soo baxdo. waa batiiqii, waa qajaarkii, waa liin bambeelmadii, barbaroonigii iyo khudaaro kale oo hadda inta oolin. intaasba yani waxaa laga heli karaa ama ka heli kartaa kambaniga Some Fresh Fruit and Vegetable. xaruntiisu wuxuu ku yaalaa laamiyaraha Zoobe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawaada A1 Makeup Store. A1 Makeup Store waxay idinaysaa ka mid ah alaaba ay ka mid ah makeup ka dhameysa full makeup ama makeup ka dhameystiran soo taqaaniin. waxaa ka mid ah shadowiyada, foundationada, waxaan haynaa bootarada, yani wixii makeup ku takhasuso. A1 Makeup Store waxay idin keentay alaaba herbal ah iyo foundation original ah. marka waxaan idin leenahay gabdhaha Soomaaliyeed la jaab yani ku dadaala quruxdiina si mar walba aad u haataan gabdho qurux badan. waxaan idin haynaa kareem anti age ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawaada Malaag Design. sidaad arkaysaan waa design kan quruxda badan aad u jeedaan. walaashin waxay soo saartay cabaayado cusub oo aad arkaysaan waxaa laga sameeyay hidii dhaqankii ilindiga aad taqaaneen, laakiin si qurux badan loo sameeyay. cabaayadahan insha Allah mar dhow waxay gaari doonaan meel walba oo ay joogto gabar Soomaaliyeed. Malaag waxay diyaar idin tahay inay meel walba idinku keento cabaayadahan aad arkaysaan oo gabar walba oo Soomaaliyeed xiran karto. dizaynadu intaan kaliya laakiin kala qurux badan yihiin. Some Fire Protection waxaan aad iyo aad u faraxsanahay bandhiga ganacsiga Soomaaliyeed. bandhiga ganacsiga Soomaaliyeed oo lagu soo bandhigayo ganacsatada ay ku soo bandhigaysa agabyada ay hayso iyo waliba waxyaalaha ay ugu talagashay inay ku soo bandhigaan. anagoo Some Fire waxaan haynaa qalabka dabka lagu damiyo noocyada kala duwan, haddii ay lahaayeen extinguisherada, haddii ay lahaayeen fireballka, banooniga oo dabka si fudud loogu tuuri karo. sidoo kale waxaan haynaa qalabka yar oo loogu talagalay in dabka lagu damiyo. sidoo kale waxaan haynaa alarm systemka iyo qalabada kala duwan. Somali Fire waxay idin keentay haddii aad isticmaasho qalabkaasi inaad dib u buuxin karto isla markaana ay ku buuxin karto. sidoo kale Somali Fire waxay haysaa inay ku bari karto qaabka u isticmaal leh training ay ku sii karto qalabka dabdamiska ee Soomaaliya. marka laga soo tago shirkadaha ganacsi ee ka jira Soomaaliya, agabyada kala duwan iyo wax soo saarkooda ay ku soo bandhigeen, waxaa jirtay dhalinyaro ku soo bandhigay hal abuuro cusub oo ay hindiseen oo ay ka gol lahaayeen inay arkaan boqolaalka qof ee halkan u soo dukaamaysi tagaya inta uu socdo bandhigan. Muqdisho oo ka soo kabanaysa dhinacyo kala duwan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay marti gelinaysay bandhigyo kala duwan oo qaarkood ay hindiseen ee dhalinyaro Soomaaliyeed. Xasan Kaaye, Som News TV, Muqdisho. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.